kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkan oo ah kii shanaad ee taariikhda Soomaalida hase yeeshee dhegaystayaal inta aanan bilaabin barnaamijkan waxaanu jecel lahay inaanu saxno qodob aanu qaladnay oo ka mid ahaa barnaamijkii ugu dambeeyay ee baxay oo Sheekh Jaamac Cumar Ciise uu ku sheegay gobolada ay ka kala yimaadeen 13 nin ee aasaasay ururkii la oran jiray SYL waxaanu ahaa qodobkaasi Maxamed Cabdilaahi Xayeysi oo aanu ku sheegnay inuu ku dhashay gobolka Togdheer Allah u naxariistee Maxamed Cabdilaahi Xayeysi waxa uu ku dhashay degmada Gabiley. haddii haddaba aynu bilowno qaybtii shanaad ee barnaamijkan taariikhda Soomaalida sanadkii ugu horreeyay markii ay isku darsadeen labadii gobol ee Talyaaniga iyo Ingiriisku ay kala gumaysan jireen waxa taagnaa xiisihii la isu qabay sida ka muuqatay suugaantaba haddaba Cabdulaahi Diiriye Sooraan oo ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee muddada dheer hawsha fanka ku soo jiray ayaanu weydiinay bal bilowgii markii gobonnimada la qaatay sida fanka doorkiisu uu ahaa aadan horta su'aal fiican baad weydiisay anigu si berigaa inkastoo aan caruur ahaa haddana waxba igama qarsooneen waxaa xoogga berigaa la saarayay bacdamaa ay dhalatay dowlad Soomaaliyeed oo israacday laba qaybood kuwii maqnaa inaan laga saxan oona sidaa ugu baraarujino heesa fara badanna waa laga tegay maxaa ka mid ahaa markaa heesaha fara badan ama riwaayad haato ama gabay haatee ee wakhtigaasi aa baraarujinta wadeen horta intaan gobollada maqnaa kuu tirin markiiba waxaa la tirtirsiiyey qoladii mas-uuliyadda qabatay ee maamulka haysay si ay kuwa maqanna wuxu dooraan dalka iyo dadka kuwa joogana nimcee barwaaqyahaybaa barwaaqahaye inta ay ka tari karaan ka taraan waxu qabtaan dalka waxaa ka mid ahaa riwaayad 60 la dhigay markiiba waxaa la odhan jiray himilo waxay noqotay waa siyaasad yaa sameeyey markaa riwaayadaas iskuulyo himiladeen lagu halkay ayaa la odhan jiray marka waxaa ka mid ahaa si ku jira nin lagu seexdo oo seexan xilbaa toos dhiirigelintii iyaga la dhiirinayay waxaa kaloo ka mid ahaa waa laydin doortay ducana laydin saarey dooroonayaashu duca qaba ahaa waa laydin doorto ducana laydin saare dooroonayaashu duca qaba dabeeto waxay soo socotaba taas waxay rixladii ahayd dhiirigelinta dowladnimada nimanka maamulka haya si ay wax uga qabtaan dalka iyo dadkana wax ugu qabtaan kuwa maqnoo baadi doonaan waa tahay dhegaystayaal aan haddaba idin maqashiino heesihii uu soo qaaday Cabdilaahi Diiriye Sooraan oo ka mid ahaa kuwii wakhtigaasi lagu heesiyey waxaana way heesta la yidhaahdo nin lagu seexdo oo ha seexan waa erayadii Cali Sugule waxaana qaadaysay Allah u naxariistee Xaliimo Khaliif Magool صدحني مقنانا ويسو سعداني صدحني مقنانا ويسو سعداني من لو سحبا سحل اللي باتذا سحل من لو سحبا سحل هالسحل السحل هالسحل هالسحل ساجدو سوينو فيجبو Soomaalidi midoodo saxabkii baxayo samaate Soomaalidi midoodo saxabkii baxayo samaate min lagu saxdo saxal ili baatida saxal min lagu saxdo saxal hasaxan 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 sajeedo waynu fejigo hawsha ay haddaba dowladdii ugu horraysay ee uu madaxda ka ahaa allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay ku dhaqaaqday waxay ahayd sidii loo midayn lahaa maamuladii labada gobol
cabdirasaaq xaaji xuseen oo xilligaasi ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladdaasi ayaannu arrintaasi wax ka weydiinay. arrinta ugu cuslayd waxay ahayd qaynuunadii yeelay oo midna ingiriis ku qoran yahay midna talyaani ku qoran yahay iyo maamulka guud iyo mabaadida caamka ah oo ingiriiska iyo talyaanigu ay ku kala duwan yihiin maamulada. marka arrin sahlan ma ay ahayn. waxaa laga yaabaa dadweynahaas hadda suuqa iska jooga ma garan karaanin arrintaasu culayska ay leedahay ama dhibka ay leedahay isu keenidooda, laakiin dadkii muxuu ahaa ama wax garanayay ama maamulka la kulmay iyagu sidii anoo kale iyo dadkii anagu ka mid ahayn bilxaqiiqata waa dareemi karaan in culayska labada nidaam oo iskhilaafsan ay wateen. guddi baa la dhisay hadiibadiiba muxuu ahaa United Nationsna ay ka bixisay niman muxuu ahaa qaynuunada yaqaana iyo technical assistance muxuu ahaa caawimaad ka bixiya iyo wixii dadka Soomaalidu ma badnayn wixii Soomaaliya xoogaa sharciyaasha iyo wax ka yaqaanay. guddi baa la dhisay waxaa loo bixiyay muxuu ahaa integration inay isu keenaan wixii qaynuunada iyo nidaamyada sharciyaasha wixii marka hadba isu keeni karo in la isu keeno. marka kuwii hadda ugu horreeyay muhiimka la saaray waxaa weeye dhinaca systemka administrationka iyo lacagta iyo budgetka iyo sida loo samaynayo iyo in la isu keena hadiibadiiba si maamul isu eg meeshii uga soo baxo. dhinaca southka waxaa jiray dad xiga kalaas xoog leh oo markaa maamulkana wax ka hayay oo laba luqadii ingiriiska la garanaya luqadii talyaaniga la garanayo. marka ayadaas ruuxeedu aad bay u saasay. waxaa la tixgelinaya xoogaa la qiimo la siinayay dhinaca nidaamka ingiriiska xisaabaha iyo maamulka administrationka inkasta oo meel walbaba influenceda labada qolo mid walbaba ay ku lahayd. talyaanigu budgetka miisaaniyada caadiga ah oo dowladda Soomaalidu ku shaqaynaysay ayuu wax ka bixinayay, ingiriisku wax ka bixin mayne. marka talyaanigu oo budgetka wax ka bixinaya wuxuu malaysan karayay waxa weeye luqadiisa iyo nidaamka isagu ka tegay inuu malaha noqdo midka wax lagu xukumo oo bida siyaadada wata. laakiin xaqiiqada saas uma dhicin. ragayagii hawsha ku soo beegantay waxaan tixgelinay in ay nala tahay mustaqbalka inaan xooga saarno dhinaca ingiriiska iyo nidaamka ingiriiska inaan administrationka inaan u leexino. dhinaca southka waa la ogaa inay ku jirto nidaam United Nations system oo kontonkii la gooyey oo 10 sano ka baad ay xorriyo qaadanayaan. laakiin dhinaca shimaalka ama waqooyiga ilaa iyo 59kii dhexdhexaadkoodii lama ogeyn ingiriisku muxuu ka maagsan yahay mustaqbalka dhulkaas lama ogeyn. marka dhinaca waqooyiga wax u diyaar ahaayo barnaamij ahaayo ama aad loo soo dhisay inay xorriyo qaadanayaan iyo muddo ay ku yirinayaan inay xorriyada qaadanayaan ma ay jiraan. inkasta oo kontameeyihii dhexdoodii iyo intii ka dambaysay tacliinta iyo ingiriisku wax ka qaftay dhinaca waqooyiga tacliinta xoog saaray oo dad Soomaaliya xoogaa training loo diro oo laba sano iyo oo training la soo siiyo. mideeda kale oo aan ka tegay waxa weeye ragayagii hadda hawsha ku soo beegantay oo mas'uuliyadda waday ruuxayo waa dadkaan u kale aqoon weyn aan u lahayn ma jirinin. hawsha baa nagu soo beegantay waxaan ugu soo beegantay intii gobonnimadii xorriyada la doonayay dadkii xoogaa dadku iska soo hormariyay hawsha wax ka wadwaday baan yaan ku soo baxnay. marka ayaga ruuxayagu aqoon weyn maanu lahayn laakiin waxaan isleeyahay niyo iyo dadaal fiican inay jireen baa qiyaasaya. haddaba dhegaystayaal sida cabdirasaaq xaaji xuseen hadalkiisa ku caddayd ama ka muuqatay midayntii labada gobol waxay ahayd hawl aad u culus oo laga yaabo dadka caadiga badankoodu inaanay u muuqanin. brofesorka la yidhahdo Ian Lewis oo ah nin taariikhda Soomaalida si aad wax uga qoray barnaamijkan taariikhda Soomaalida ku saabsanna aanu si xooga ugu xiganayno waxa isna uu ku qoray buuggiisa la yidhaahdo Modern History of Somalia. in kasta oo labada gobol midnimo dhaqan ay ka dhaxaysay haddana waxay lahaayeen dhaxal xagga dhaqamada gumaysiga oo kala cadda oo ay ka mid ahaayeen ingiriiska oo xooga saara xagga tayada waxbarashada horumarka mujtamaca garsoorka iyo dhaqan wanaagga xagga maamulka iyo in la kala saaro arrimaha siyaasadda iyo maamulka. arrimahaasuna waxay ahayn siday u arkayeen reer waqooyigu qaaraan kala caddayn dhinaca koonfurta. faraqa xagga maamulka u dhexeeyey labada dhinac ka sokow waxaa iyaguna jiray dhibaatooyin kale oo ay ka mid ahayd Muqdisho iyo Hargeysa oo xiriir xagga telefoonada ahi aanu ka dhaxaynin markii la isku darsaday. gaadiidka xagga cirka oo iyagu u badnaa diyaarado kuwa booliiska ah isaguna marmar ayuuba ahaa socodkiisu. jidka dhulkuna laami la'aan awgii waxa uu ahaa mid aad u dhibaato badan waxaana safarka baabuurada uu qaadan jiray haddii markaasi wax dhibaato ahi aanay iman
ugu yaraan 3 maalmood. kadib haddaba markii uu burburay xiisihii ay isu qabeen labadii gobol ee midoobay ayaa haddaba waxa soo baxay dareemo ay ugu xoog badnayd reer waqooyiga oo isweydiiyey isku darsigii labada gobol inay ku khasaaroobeen iyo inay ku faa'iideen. arrintaasi waxay soo shacbaxday markii saraakiil ciidamada qalabka sida ka tirsan ee Soomaaliya oo reer waqooyi ahaa ay sameeyeen afgembi dhicisoobay bishii Disembar sanadkii 1961. cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladdii saraakiishaasu ay ku kaceen. sababta haddaba laga yaabo inay ku kaliftay saraakiishaasi inay isku dayaan afgembigaasi waxaan wax ka weydiinay, bal sida uu arko cabdirasaaq xaaji xuseen waxaanu ku jawaabay. wallaahi arrintaas muxuu ahaa si nasiib darraabay ay ku dhacday. aqoonteedu waxaan u malaynayaa garashadayda niman dhalinyaro ah oo dhowra bay ahaayeenoo muddo aan fogeyn ka hor bay ka soo noqdeen adugu kulliyo muxuu ahaa militariga mudayarka bacdi isku darkii baa yimid. markaas labadii waddan isku darsameen dhinaca militariga nimankii madaxdii sare waxay u baxeen oo noqdeen dadka sawdka ah. maxaa jira dadka sawdka ah awal muddo loo soo shaqeeyey lasoo dhisay weeye. inkasta oo ayan kulliyo weyn oo sida ragga dhalinyarada ka soo baxay ayaan ka soo baxin, laakiin 20 sano oo jareynina bay soo mareen. laba sano ruuxuhu ay soo qaateen oo kulliyo ay Itaaliya ka soo qaateen. khibrad dheer oo waayo aragnimo ah 20 sano ana waa ay lahaayeen. niman ku xun ma ay ahayn inay madax ka noqon karaan militariga, laakiin dareenkaygu waxa weeye nimankan dhalinyarada ah waxay istuseen nimankan waa iska cilmi badan tihiin, ayaga madaxnimadii haysta. marka waxaan u malaynayaa ambition ama mahadama muxuu ahaa darajo iyo iyada oo halkaas sano oo hadda maaragtay isku darsanaa idaacooyin iyo warar aan badidoodu sax ahayn ayaa suuqa la mariyay oo la yiri noord waa la laqay oo south baa laqay oo hadalkana lagu qabsanayo maaragtay muxuu ahaa presidentini waa suud weeye, prime ministerkii suud weeye, wasiirka daaqiliga south baa haysta, muxuu booliiskii muxuu ahaa south baa haysta, generaalkii. marka noord waxba ma baahaba waa la laqay. marka haddii hadalka saas loo yidhaaho intaas masagaan u weeye, laakiin haddii hoos loo baaro la yidhaaho maxay ku dhexeen soo saas inay ku noqoto waxaa laga yaabaa tafsiir macquula in laga bixin karay baa suurtooda. marka anigu waxaan isleeyahay nimankan dhalinyarada inaan ku gafsanayna waa suurtooda, laakiin anigu waxaan isleeyahay waxay isku dayahayeen inay waddanka kala gooyaan. sidii haddaba cabdirasaaq xaaji xuseen uu jawaabtiisa ku sheegay oo ahayd inay habboonaan lahayd in sababta la weydiiyo raggii afgembigaasi isku dayey, waxaa noo suura gashay inaannu weydiinno ambasador cabdulaahi aadan oo kongo ku magac dheer kana mid ahaa saraakiisha uu ka fashilmay inqilaabkaasi. cabdulaahi kongo waxaa markii dambe uu noqday danjiraha Soomaaliya ka fadhiyey magaalada Qaahira, kadibna waxa uu ka mid noqday ururka jaamacadda carabta oo uu ka gaaray inuu ka mid noqdo la taliyaasha xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta. isagoo ka jawaabayay arrinta inqilaabka ka fashilmayna waxa uu yidhi cabdulaahi kongo: inqilaabka horta waxa ka horeeyey waxdadii koonfur iyo waqooyi. israaxana waxay uga jeedeen markaa in ay u ahaato saldhig shantii Soomaaliyeed inay u keena halkaa. markii waxdadaasu dhalatay sida xamaaska ay ku dhalatay markiiba waxaa bilaabmay in maslaxadii shakhsiga ahayd ama dangoosasho in yari leedahay ay ka kor yeesho maslaxadii caamka ahayd. taasaa ka weynaatay. waxaana jiray markaa miisaankii markaa taagnaa xagga waqooyigu waxaad moodaa inay ka baxeen oo wixii oo dhamma ay noqotay in miisaanka uu noqday xaggii koonfurta uun. waxaa dhacday markaa markiiba dadka jooga waqooyiga cadaalad xumaa ay dareemeen. diidmaa dhalatay israaca wax la yidhahdaa. waxaa la saluugameed leedahay markaa israaci maxaa markaa ku cadaynaysa inay saluugaasi jiray? waa cadaynaysaa dastuurkii ama constitutionkii israaca xagga waqooyiga aqlabiyadii inteedii weynayd waa diiday. waxaan xusuusay haddaan khaldanayn gebigiisaba waxaa ogolaaday 4500 oo qof. taa waxaa ku xigay mudaharaadkii macallimiinta iyo ardaydooda iyo dhakhtaradii. waxaan xusuusay iskuulladu waxay xidhnaayeen 4 bilood. waxaa kala jiray shucaradii shalay u gabeeyey waxdada ee doonaya inay dhacato israacu
yaa markuna waxay isu rogeen kala go'i raggan waxaa ka mid ahaa ninkii jimcadde markuu lahaa duqaydii baarlamaanka iyo dekadii xamar baa leh markii dacweyne markuu soo noqday yaa waxaa jiray dibigeedaba waqooyi constitution dhisan waxaa jiray militarigii ee Soomaaliya ka dooran jiray waxaa la saaray militarigii marka waxaana la saaray laxaad yaa idin saaray inta shacabkii marka waxaan u dhiirigeliyay umuurta halkeedii ku soo celino intaanay meel xun gaarin oo arrinta Soomaaliyeed ama meel xun la gaarsiin waxaan u jeednay markaa horta waxaan ثورة تسيحية لإله الصومالي وحوية إلى الوحكوس تحضر مركا waxaan doonay waa inaan ku soo celinaa arrinta sida ay ahayd 26 June anagoo quwad isticmaalayna si aynu u saxno qalatadii siyaasiga ee dhacay oo loogu bedelo cadaalad shacabka dhexdiisa ah waxa kale hadafkayga labaad wuxuu ahaa in dadku u wada siman yahay wixii xuquuqa iyo wixii waajibaadka waa tahay عبد الله كان حكى لما قال لا waxaan doonayna inaan wixii saxno ma waxa doonaysan inaan wada hadal dambe gashaa oo weeyku ku waata wada hadalkii ana ku imanay inaan wada hadal doonayna ku cadaan doonta arrintuba waata marka waxaan doonayay in dadku isku mid laga wada dhigo xagga qaanuunka iyo xuquuq waxay leeyihiin iyo wixii haystaan waajibaad leeyihiin in loo sinaado waxaan kala doonaynay inay waxa qora ee bini aadam Soomaaliya lagu qiyaasi karaa inay tahay kartidiisa iyo cilmigiisa وهاي النقطين يا ريت هنا يا حديدة يا وحابتها وحابة دوني إنه لفر الدايلوج أما ولا حدا ولا لدى هنا كونفور حديثة تدعي ولينا الديدان قال قوة عجاب إنه بيكو شيء وحانور لنا دي أيقون الديدان مكا يقدم بهنا أنا وحي كوي قال قاتي ما نحي haddii aad taataabto matala waxyaabaha maleeshiyana dul maga waragtay markaas maxaa ka mid ahaa matala dhinaca militariga kala marka la xagga militariga waa ku sheegay dhigayso waxa dhacay mar ayaala markii la yiri labadii wadan wala isku darayna militariga waxa lagu qaaday Sambil markaas aan walba wuxuu doonay iskaga tashay laba kafadood baa la saaray reerebelinka sili militariga reerebel baale booliiska reerebel baale ku-xigeenka reerebel baale ku-xigeenka kale militariga reerebel baale waxa inkaas xagee ka dhacaysa taas رجي بوليس كها يوم بنو لقى جنرال أي وحي أنا بمركز كسب بحري ميلتري أكاديمي توصل علينا جاء تكلم وحويان نور قرى أنا أروح لو حرس كفري جري سيدي مستعمرات لقب صدي يا أروح أنقرنا يوحد جوني ماشي بري عوله إلى هذا واحد سيدي رتاس ما ريدي مركز أفر ما يشتني نو سراكينو كونفور كتمي يوم بقى يقول لا روبر خصو يقول لا فرقو جمهور مركز يدل يماتي يعني هو كوماندنتي معنا كان هو فيش كوماندنتي كان هو عين كان هو عين كان وحنا وقانا متشري هو قرر ما نقطتين ما هو وحنا محل يسوي شيء هو مش ولا يتخصص يعني وح عين كان حد على كل شيء هي ملتري ده كذا حاجه waatahay kaasi waxa uu ahaa Cabdilaahi Kongo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra'iisul wasaare ka ahaan jiray Soomaaliya hase yeeshee xilligii inqilaabka saraakiishu ay isku dayeen wasiirka arrimaha gudaha sidii aan horeba u soo sheegnay ayaanu isagana arintaasi wax ka weydiinay Cabdirasaaq ma kugu muuqataa shakhsi ahaan marka la eego xilligaasi in ay ka muuqan karto meesha midalan in waqooyigii saamigii ay helayeen aan helno qadar xaq darriyo ku jira meesha su-aasha waxa weeye sidee bay ku timid waxa kale siday ku dhaceen weeye sidee ku timid awal buule markii la isku soo darsamay hadiiba baarlamaankiiba la isugu yimid iyadoo loo dhayahay waxaa lagu heshiiyey oo aan la isku khilaafin oo qof walbaba gacan saxabis lagu waxeeyey aadan cabdulla cusmaan inuu noqdo madaxweynihii jamhuuriyadda isu timid soomaaliya qof hadal ka qabay iyo qof la tartamay iyo qof aan ogolayn xaqiiqadu ay tahay ma jirin doodii looma sameyn saxabis baa lagu aqbalay okay aadan cabdille markuu qabtay meeshii dastuurku wuxuu sheegaya waxa weeye aadan cabdille waa inuu dadka la showraa markuu dadka la showro waa inuu magacaabaa u yeeraa nin ay la tahay ninkii isaga ay la tahay inuu prime minister noqdo laa saame qabiil walaa saame muxuu ahaa gobol midkoodna maskax meesha ku jirta waktigaa ma ahayn aadan cabdille waxay la noqotay cabdirashiid inuu ka dhigaa prime ministerka inuu ka dhigaa baarlamaankii waxaa loo doortay in isaguna reer waqooyiya yaa loo doortay saddexda jago oo
ugu waaweyneyd oo legislative executive iyo baarlamaankii judiciary ayagu gooni bay ahaayeen waxaa yimid booliiskii iyo militariga awalba intaan laysku soo darsamin muxuu ahaa yaa la gooyey southka oo ingiriis talyaanigu hayayoo in military la sameeyo general daa'uud baa laga dhigay inuu militariga u madax yahay ayaa markaa laga dhigay muxuu ahaa booliiskana maxamed abshir oo isla generaalaba ayaa hayay markii booliiskii laysu yimid jaamac qorsheel oo isaguna korneylabaa xagga ka yimid oo booliiska wada ayaa ka yimid booliiskii meesha joogay waxaa isla ogolaaday ana think inaan qof muranka keenaysan jirin maxamed abshir inuu qualified u yahay dhammaanta suguta barbarta oo booliiska madax u noqonaya inuu yahay barnaamijkii taariikhda soomaalida oo kii shanaad ahaana dhegaystayaal maanta halkaa aynoo joogo